oo dunida kor jooga afreelaatan saacadood u haysta cidna looga badin maayo hadday sanawaadka nolosha tahayna in go'an baad haysataa mid konton nool iyo mid lixdan noolba waqti go'an baad leedahay waxay yidhahdaan waa mawlid aan takhsiinka aqbalin ma kaydsamo oo hantida aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yidhahdaan laakiin waqtigu kaba mid aha waxaa kaydka gala afreelaatanka saacadood ay ku soo marayaan waana compulsory waxay yidhaahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaaba aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la daynsan karaa waxa kale oo dhan bay dhahaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo ninka inoogu hantida badan le saacad ma heli kara dheeraada afreelaatanka saacadood buu haystaa geeridana saacad dib looma dhigi karo waqtigiisu ku dhammaanaya saa daraaddeed waxay yidhahdaan waqtigu waa mawlid muxadad ah waa aan gelin kayd ma galo lama gadan karo bedel ma galo waad ku qasbantay inaad sarfida bay leedahay qiimihiisuna wuxuunbuu ku kordhaa bay leeyihin sida looga faa'iidaysto waqtiga qiimihiisu wuxuu ku kordhaa istiqlaalu sidaad uga faa'iidaysato saacad qiimo leh iyo saacad aan qiimo lahayn labadaba waad soo maraysaa haddii guud ahaan la eegana bay dhahdaan waa muddo majhuula inta aad dunida joogayso saa daraaddeed waxay dhahaan qofka bini aadamka ahi hantida dhabta ee uu haystaa waa inta uu jirayo hantida dhabta ee aad leedahay waa inta uu jiro waa ra'sulmaali alxaqiiqiga qofka bini aadamka haysto إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا واحد لقى شيء يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك وغير نبي آدم ومال منبط هيقول إيه مال إن ما كاتك تبا قيمة دي كم إذا بعتك تي إذا عمر يا لشيء يا واحد إنه هيسنه وسكن ديسكاس سكن ديسكو هذه قيمة قومة له لكن nolosha marka la xisaabanayo marbu jajabku qiimo leeyahay qoladan orda hay kala dheereeyaan koon xufta carara 9.cha wa secondis wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan thaniya ama second wax ka yar ayaa wan lagu galaamo tool lagu galaamo jaayisad lagu helaa ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa haddaba waqtigu qofka bini aadamka ah waa waqtiga أنا عجيب وقتي أنا إنه هذا شغله قلباتكم واحد ضدك برين وحن بنادم بحب استعمال الشرين ضدكم مركو حباشة كسيد وهذا بينو فرحة بيرث داي قوامحي فالبعض عمر جيتو تيسوما حكا حباشة مركو كسيد وهذا بمية فرحي وحقبتكم فرحي سي وحد إنتاج هذا السوق اللي بتشرو ومجرد إن سنة كسر وريجي أنت أشوفتي إن الحراشة كسر لواتي ويا وقت عين كاله سدا قيمها أولى كفايدة يسوي حق حرية بين هذا قيمها وقت غير فهمت هذه قيمها هي أهمية وقت قولي وفهمه قف بني آدم كاي وحاو فهم يا قرنيا sida uga faa'iideysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaali waxa qabtaa garan waay waqtiga maxay ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwara waa maxay rabbi rji'uun ilaahu yacil wa kan adimka garan laaday si aad tiraahdo ayaa calaacal ku noqon doona ilaahu waqti yaro damba halaysiyo hadduu markaa qofku bay yidhahdaan hadafku ka lumo qiimaha waqtigu uu ka lumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda way idinku jiraa qof usbuuca soo socda wuxuu qaban kara saacad walba u qoranta usbuuca soo socda waxa uu rabo inuu qabtaa u qorantay إدارة الوقت كي يشغل تايم مانجمنت كي يشغل وينتهى وين الهدف يا لطه to do list قائمة الأعمال الطبق دوقات لا هاي
jadwalada ku qaban doonto aad leedahay. qodobkooda saddexaad waa tartiib awlawiyaat, priority, say kugu kala muhiimsan yihiin. maxaa must ah inaad qabato, maxaase 50-50 ah, maxaad waqti haddaad u hesho ku xidhan, maxaa hadduu kugu dheeraado aad ka kala riixi kartaayo kanuu qaadan karaa. idan waxay dhahdaan prioritieskuna waa inay calaamadsan yihiin, colors bay ku isticmaalaan say u kala horeeyaan. nolosha dhammaanteedba jadwaladay u sameeyeen waa intaa waxa dheer bay dhahdaan tartiib ilxayaa. noloshaada halkaad la maraysaa waa inay kuu ballaangaraysantay bay dhahdaan. the coming 5 years, the coming 10 years maxaad rabtaa inaad noqoto. waxay leeyihin noloshaadu meesha aad rabto inaad qabato waa inay planetka ku jirtaa. waqtiga soo socda maxaan qaban doonaa. idan qof baa caalim noqday iyo khabiir buu noqday iyo kan buu noqday waxa weeyaan waqtigu ka faa'iiday. classmatekiisi muxuu noqon waayo waqtigaan ka faa'iidaynin. qof kasta oo waqtigiisu uu qiimo ugu fadhiyaa nolosha waxbuu ka dhalinayaa. qofkii aan waqtigiisu qiimo ugu fadhinna dee saynuu soo jirray buu u soo jirayaa. mid aragga ku eegna waad dhali karaysaa insha allahu tacaala haddii waqtigu kugu sugo, laakiin dunida culays baad ku tahay ziyaada. qofku buu dunida ku yahay haddaan waxba soo kordhinaynin waa ziyaada cala alxayaa. inaad sidii ilaahay u abuuray ugu dul taagnaataa iyadoo caqli alla ku siiya awood iyo tamar waxba kaa soo bixi waayaan waa wax liita. waxaa mawduuca laydinku dooray uma filayaa inaad tihiin dadkan intellectualkii waddanka u soo socdiya ummadda ee la rabay inay wax bedelaan. waxaad joogtaan hadda waqtigii jucbada la dhaansanayay, waqtiga ahaantiina dhaansan lahayde, waqtiga ay idiin midho dhala ahayd waa idiin dambeeya. hadda haddaad bakeeri noola timaadana in bakeeriyumaad laga heli, haddaad adoo booyad sida la timaadana waxbaad tari doontaa. waa saad jucbadaada u soo dhaansato, taasina waxay ku xidhan tahay waqtigaaga saad uga faa'iidayso. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasallam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.